والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله كما دير waxay ku saabsanaan doontaa bal inaan mar labaad isku dayno inaan si fiican u dhuuxno kitaabka alle subxaanahu wa tacaala hada alkitaab alladii bayna aydina ilaahay uuna siiyey wuxuu ka mid yahay min acdam nicam nicamka ugu waaweyn ilaahay ummadana siiyey bay ka mid tahay oo bashariyada ugu daaqay marka annagii intaan meel kale wax ka raadinayna waxaan u baahanahay runtii kitaabkeena inaan usoo laabanno oo aan isku dayno inaan dhuuxno laanno waxaa laga sheegay sayidina cuthmaan bin cafaan inuu yidhi haddii qulubteennu ay daahir ahaan lahayd marnaba ma aanan ka dharinin kitaabka alle subxaanahu wa tacaala laakiin annagii baa qulubteennii niyadeenna waxaan ku mashquulinay arrimo kale oo maaragtay adduunyo iyo arrimo la xiriiraan ku mashquulinay markaasaan waxaan hareermarnay nicamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey waxaan rabaa inaan bacd al-aayaat soo qaato kadibna maaragtay aan iskula dardaarano kulligeen inaan khayrka ku wada dadaalno oo marada dhexda ku xiranno insha allah يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين marka walaalayaal horta marka ugu horeysa yani requirementiga ama waxa loo baahan yahay inuu qofku ku sifaysan yahay markuu kitaabka alle rabo inuu wax ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah inuu qofku kitaabku u dhaqaaqo isagoo rabaha inuu ilaahay kitaabkan ku hanuuniyo isagoo aaminsan oo jecel inuu muttaqiinta kitaabku tilmaamay ka mid noqdo markaasaa ilaahay wuxuu ku kala furfurayaa asraarta kitaabkan subxaanahu wa tacaala suuratul baqara oo ugu horeysa maaragtay kitaabka markii la kala furo waxay ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim ألف لام ميم ذلك الكتاب كتابكاس لا ريب فيه وح شكي أو كجرا مجرا أن لن إلهي حليها هدى للمتقين وحو هنون إيها قفك إلهي كبقية هديبا مركب باشا وحن وقصوا بحيث هدانا المتقين تكمد هين والعياذ بالله إلهي وكما قال لنا كتابك كان منو نقوني هنون منو نقوني كتابا كفايد سن مركب أوه الرئيس وحن بحنا قفك مكو أوسو qaabilayo ama u soo jeesto kitaabka alle subxaanahu wa tacaala inuu rabo inuu kitaabkan hanuunka helo inuu ku sifaysan yahay yani adiga ma lagaa rabo inaad robot noqotid iyo machine laakiin waxaa lagaa rabaa niyadaadu inay rabto inay hanuunka qaadato hadhowto waa dhici karaysaa dhacdhac iyo gafis iyo waa dhici karaysaa laakiin naxariista ilaahay waxaa ka mid a ilaahay waa nagu ogyahay saas ilaahay wuu noo ogyahay saas ilaahay gafkeenna waa uu ogyahay subxaanahu wa tacaala markaan kitaabka qaabilayno waxaan rabnaa inaan dadka muttaqiinta ka noqono si uu kitaabkan hanuun loogu noqdo aayadaha ku xiga marka waxay sii fasiraysaa muttaqiintu waa kuwama alladhiina yu'minuuna billaahi walyawmi alaakhiri kulli aayad markaas afarta aayadood ugu dambaysa waxaa ugu dambaysa inuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ulaa'ika humul muttaquun kuwaas waa kuwii maaragtay liibaanay oo guulaystay marka si aan kitaabkan uga faa'iidaysano waxaan niri waxaan u baahannahay inaan rabno inaan kitaabkan hanuun ka helno markaasaa dhowt waxaad haysataa ducooyinkii waxaad haysataa ilaahay inaad u dhowaato subxaanahu wa tacaala mar iyo labo iyo saddex markaad proof garayso oo yani aad lagaa hubiyo inaad tahay qof raba jidka hanuunka inuu qaato ilaahay abaabada khayrka waa uu ku furayaa subxaanahu wa tacaala آيدي أنكو بلابنا إلهي سبحانه وتعالى حليه ادخلوا في السلم كافة كو إلهي نبي سر الرمييه سلمي وحلوة الماما الإسلام كله قال إسلام كل جيس لمرة بقار كمل إنا إسلام وقاله قار كمل أنا ويرا هذا معرة لوقت برناك هاي تالو لغنها إي وجرت لمرة ادخلوا في السلم كافة وحي مركا إنتا كسوسكي آيد وحيت الماما يسا waxay leedahay walaa tattabicu harraacinina khutuwaati shaytaani tallaabooyinka shaytaanku idiin tilmaamaya harraacina sababtu maxay tahay innahu isagu lakum idinku wuxuu idin yahay caduwun mubiin cadow cad ayuu idin yahay macnaha wixii boqolkiiba boqol ka sokeeya waa qofkii oo raacay khutuwaati shaytaan adiga ha ka ahaato yani inaad tiraahdo oo hadhowto waa iska dhalinyaraan ahay xoogaa yaraan iska raaxayso waaba haddii ay raaxo jirto yani hadhowto markaan weynaadaan qof maaragtay diinta si fiican u wada qabsanaya bal horta safarkan aan aado kasoo laabta
niyo arma maaragtay waxaad wax kala qaybisaayo qaarna diinta gashaa qaar lama rabo waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay boqolkiiba boqol udkhuluu gala fi silmi islaamka kaafatan kulliga marka wixii intaa ka soo raaca oo boqolkiiba boqol ka dhiman waxay noqonaysaa adiga oo raacay tallaabooyinka shaytaanka oo ilaahay noogu tilmaamay inuu shaytaanku yahay cadow cad yani cadowga shaytaankana ma aha yani mid caadi ah mid yani caraysan wey waa shaydaan isagii uu gafay awaamirtii ilaahay inuu qaato subxaanahu watacaala markaas wuxuu rabaa dad badan inuu maaragtay galaafto oo hadhowto maaragtay jidkaas oo dalalka ay maaragtay wada qaadaan kitaabkan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha uu ku tilmaamay fi suurati almaa'ida waxaa ka mid ah yahdi bihi illaahu man ittabaca radwaanahu qofkii kitaabka kan raaca ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa ilaahay raalli ahaanshihiisa haddana subul asalaam jidadka nabadda ayuu ilaahay ku hanuuniyaa wayukhrijuhum min adulumaati ila annuur mugdiyada ayuu ilaahay kaaga soo saaraa oo nuurku ku maaragtay ku keenaa xaggiisa waxaad kaloo meesha ka fahmaysa dulumaadku waa badan yihiin dulumaad noocyo badan ayaa jira laakiin nuurku waa hal mida biidnihi haddaad ka soo baxdana dadaalkaaga iyo maskaxdaada uguma aadan soo bixin ilaahay idinkiisaad uga soo baxday wayahdiihim ilaahayna wuxuu ku hanuuniyaa qofkaasoo kale ilaa siraatin mustaqiimin jid ilaahay uu toosiyey ayuu ilaahay qofka ku hanuuniyaa aayad kale waxay leedahay wahuduu ku hanuunsama attayibu min alqowli qowlka kiisa wanaagsan ku hanuunsama culimmadu markay sii fasirtayna waxay yidhaahdeen waa laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah wahuduu haddana kusii hanuunsama ilaa siraadin wadadii alxamiidi ilaahay dadka mahadinayay yani uu lahaa wey waxaa marka yaab leh adigii oo miskiinka ahaa markii aad maaragta wax lagu sameeyey haddaad tiraahdo alxamdulilah waaba la gartay ilaa qof wax loo sameeyey hadda laakiin ilaahay adiga wax kuu sameeyo haddana kugu sii mahadinaya bal ka warrama yani arrimahaas waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu watacaala deeqsinimadiis waxay tilmaamaysaa ilaahay karamkiis qofku markuu isweydiin kara wallahi jidadkan la tilmaamayo bal ka warramo markaasaa ilaahay subxaana watacaala aayad kale wuxuu isticmaalayaa oo uu ku dhaaranayo waxa kan inay xaq yihiin waana runtii wax laga baqo ilaahay oo subxaana watacaala inaan gaarsiino heer uu dhaarto yani dhibta bani aadamka ayay ku tilmaamaysaa ilaahay wuxuu leeyahay fawarabbi asamaa'i waalardi waxaan ku dhaartay rabbigii samaawaadka iyo arlada innahu ay kitaabka kan ay macnaha dacwadatan ilaahay uu noogu yeerayo la xaqun waa xaq weeye maxaa marka yani mithaal baa loo baahan yahay sidee buu xaq u yahay oo allah wuxuu xaq u yahay mithla ma annakum tantiquun sidaa idinkuba u hadlaysaan oo aad u hubtid inaa qofka hadlaya uu yahay adiga ayaa waxa kanina u yihiin xaq ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimid marka aayadahaasoo dhan haddii uu qalbigaaga uusan jiranayn haddii qalbigaagu uu yahay qalbi caadila oo xaq raadisa waxaasoo dhan markuu maqlo qofkii wax kale maaragtay uma suuroobayso inuu ilaahay subxaanahu watacaala isu dhiibo mooye aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwii ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa rumeeyey oo markay iimaankii la yimaadeenna lam yalbisuu iimaanahum bidulmin mana aysan ku xambaarin ama ma ayan ku darin iimaankooda dulmigaas waa macaasi waa dembiyo ayuu noqon karayaa ulaa'ika kuwaas ayaa lahum lamnu wahum muhtaduun kuwaas ayaa nabadii u sugnaatee wahum iyagaana muhtaduuna ah kuwa hanuunsan waxaanu raadinaa marka qaarkood security adduunkan waxaan ka raadinaa security inaad guryo dhisatid inaad agtaada ay mar walba joogaan ilmo aad dhashay inaad ahalkaaga iyo qaraabadaada iyo tolkaa ku dhex jirtid inaad isku ilaalisid career iyo professionals iyo waxaasoo dhan dabcan waa ay fiican tahay laakiin waxaa la diidayaa inay noqoto waxyaala ugu waaweyn aad adeegsanaysid oo aad ka raadsanaysid nabadda waxaa nabad taallaa xagga alle ayay taallaa subxaanahu watacaala qur-aanka walaalayaal markaa u fiirsataan yani waxaa jirta saraaxa runtii ma kan dhegeysid hadalkan waxaa aad iyo aad ila weyn sayidna cuthmaan uu yiri radiallahu canhu uu leeyahy quluubtiinu haddii ay maanta daahir noqon lahayd marnaba qur-aanka kama dharagteen marka haddii aadan qur-aanka fahmaynin waxaa ogaataa wax ayaa naga qaldan
marka waxaan u baahannahay nafteena inaan hagaajinno, inaan islaaxinno, oo aan maaragtay mar walba ku xambaarno waddada xaqa ah. Aayadaha kale oo cajiibka oo runtii timaha kaa dhaqaajinaysa waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala yowmulqiyaama markii la gaaro wuxuu noo sheegaa waxyaalaha dhici doona. waxyaalihii dhici doona annagoo hadda adduunka ku nool ayaan akhrinaynaa oo kitaabka alle ka akhrinaynaa. waxaa ka mid ah aayaddan suuratul ancaam ku jirta. ilaahay wuxuu leeyahay walaqad ji'tumuuna furaadaa kamaa khalaqnaakum awwala mara walaqad xaqiiqeeye ji'tumuuna waxaad noo timaadeen fi yowmi alqiyaama furaadaa idinkoo keliya oo wax walba oo aad adduunka maaragta ku haysatay aadan haysanin, sidii aan markii ugu horreysay idiin abuurnay oo kale. wataraktum waxaad gadaal uga soo tagteen maa khawalnaakum wax allaale wixii aan maaragtay idin huwinnay ama aan idin siinay wama aad ku haysateen adduunka gadaal baad uga soo tagteen. waraa'a duhuurikum wamaa naraa macakum mana aragno shufacaa'akum aladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa kuwii aad tiraahdeen waa noo shafiica qaadayaan oo aad tiraahdeen kuwan ayaan maaragta hadhowta insha allah adeegsan doonaa oo noo noqon doona maaragtay kuwa nooga shafiica qaada dhibtan aan yowmalqiyaama kula kulmeen. ilaahay wuxuu yidhi ma aragno kuwaas. laqad taqataca baynakum xiriirkiinnii waa kala go'ay wadalla cankum waxaa dhumay maa kuntum tascumuuna wixii aad sheeganaysa. bilaahi calaykum aayaddaasoo kale marka akhrinaysaan soo ma dareemaysid cidlo, soo ma dareemaysid cabsi, soo ma dareemaysid wax allaale wixii aad ku tirsanayd oo dhan inaysan waxba ka jirin. hada qofkan hadlaya waa alle subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sii sheegaya waxyaalaha aan maaragta dhici doono yowma alqiyaama. marka walaalayaal waxaan u baahannahay we need to go back to Allah subxaanahu watacaala. ilaahay waddadiisa inaan usoo laabanno. adduunkan waa aragtay imisaa qof janaaze iyo qubur u qaaday, annagii waa soo taagannahay weli. waxaa midba mar u dhintaa, bal maadaama bani aadamku uu yahay mid aad iyo aad u ilow badan, kana dhimanaya waa ilaaweysa, haddana mid kala dhimanaya waa ilaaweysa, haddana waxaas ku cibro qaado oo isu diyaari maalinkan oo kale ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaloo naga rabaa markuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha kuwii ilaahay rasuulkiisa aaminayo ittaqu llaha ilaahay ka cabsada wabtaguu raadiya ilayhi ilaahay xaggiisa u raadiya alwasiila wax allaale wixii idinka hor yimaada aad adeegsanaysaan ilaahay niyaddiina hagaajiya oo ha noqoto midaad ilaahay darti ula danleeda. shaqada markaa aadaysid oo ilaahay waxaan u shaqaysanayaa inaan nolol nadiifa oo xaaraan ka fog aan ku noolaado, inaa awlaadeeda iyo odagayga iyo xaaskayga ay nolol nadiifa xalaala ku noolaadaan. waxaan rabaa inaan ummadayda ilaahay subxaana watacaala hadhowt waxaanaan wax baranayo ugu tago. sidaasaa marka horta loo islaaxiyaa niyadaada markaa wax baranayso ama aad shaqaysanayso. wajaahiduu wuxuu leeyahy ku dadaala fii sabiilihi. aayaddaas waa cajiib. waxaa ku dadaashaa ilaahay waddadiisa ku dadaala. ma aha fii in la noqdo xildhibaan iyo in la noqdo wasiiri iyo in la noqdo professori, midna maaha. wajaahiduu ku dadaala fii sabiilihi waddada alle ku dadaala lacalakum markaas waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaadaan. maxaa dhacaysa marka haddii aan waxaasoo dhan oo wanaaga diidno? maxaa dhacaysa? ilaahay wuxuu leeyahay, wuxuu kaloo noo soo tilmaamaya aayadaha suuratu yunus oo kale. I hope ina aayadaha notes ka qaadanaysaan, sababta waxaan jeclaan lahaa in markii hadhowta oo duruusta ama casharada ay dhammaadaan keligaa markaa tahay, markaa firaaqa leedahay, bal aayadahaas inaad dib ugu laabatid. sababtoo ah waxaa jirta aayado aadan marnaba islahayn oo yani oo aad ilowsan tahay micnaheeda markii lagu xusuusiyo oo aad mar labaad fiiriso inay macnaheedu kula weynaanayo. aayadahaasoo kale aniga haye, adiga haye, walaasheen kala haysa, wahaakada. sidaasaa marka loo wada wadaagaya. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay oo kale kuweenan kale ee diiday ilaahay nagama dhiga kuwaas waddadii alle. in aladiina kuwii laa yarjuuna liqaa'ana kuwii aan rajaynin annaga la kulankeena waraduu bilxayaati adunyaa raalli ku noqday noloshaan aad arkaysi dhibteeda wadma'anuu bihaa ku xasiloobay waladiina hum can aayaatina gaafiluun iyo kuwii aayaadkeenna gaafilka ka noqday oo
maskaxdooduba ay ilowsan tahay. Ilaahay kuwa nagama dhigo. Marar badan waa ku dhacnaa waddadaas, laakiin insha allah mar walba waa u soo laabanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala. Wii aan la kulanka ilaahay sugaynin ama aan rajaynaynin. oo waraduu bilxayaati dunya. Bilaahi calaykum, adduunkan aragteen hadda maasha allah waxaan ku tirinayaa dad oo wada adaltisa in la wada yahay oo dad waaweyn noqday oo adduunka noloshiisii la fahmay. marka nolosha tan mid raali lagu noqon karo ma tahay. waraduu bilxayaati dunya, oo haddana ilaahay wuxuu kusii daro wadma'anuu bihaa, kusii xasiloobay. yani marka qaarkood waxa weeye fitanku, imtixaanada fitanka waxa weeye ciriirina wuu galaa, ladnaanna way gashaa. adigoo ilaahay ku ladan siiyey oo waxaa arkaysaa promotion after promotion oo dalacsiin baabad helaysaa shaqadii, laakiin haddana waxaa arkaysaa qof aad iyo aad ugu liitay inaad tahay xaggii ilaahay u dhowaanshaha. taasi maxay noo tilmaamaysaa? waxay noo tilmaamaysaa inaan imtixaan ku jirno. hadhowt waxay noo tilmaamaysaa kuwaas ilaahay uu tilmaamay inaan u ekaanay oo la doonayay inaadan u ekaanin. wadma'anuu bihaa, ku xasiloobay. والذين كوي هم عن آياتنا غافلون. آياتهن كوا مارة مروا بمسكحذوذ إلو سنتهي. أولئك مركم محير إلى كواس مأواهم وحيكون بين دونا وهي النقم دونا النار، نارتو والعياذ بالله. نارتو ولقد دعيست اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. السؤال علي إن شاء الله. إلهي وكريم، adigoo maanta markuu qof baryada kaa badiyo mar unba aad usoo dabcada waad siinaysaa sooma. adigii marka haddii saa ay kaa suurtoodo ilaahay maxaa moodaa? marka waxaan u baahanaa inaan ilaahay ku celcelinno oo nidhaahno allahuma inaa nasaluka ridaaka waljanna wanacuudu bika min sakhatika wannaar. aayaddu marka waxay leedahay ulaa'ika kuwaas ma'wahum lnaaru, waxa hoy u noqdeen naar, bimaa kaanuu bisababi baabay ku noqdeen sababtii awgeed oo ay ahayd midii adduunka ay ku kasbadeen. waxay adduunka ku kasbadeen unbay aakhira helayaan. ilaahay wuxuu kaloo siilayay in aladiina aamanuu, kuwa ilaahay nabigiisa rumeeyayo, wacamilu saalixaati, wanaagga la yimido, yahdiihim rabbuhum, ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa biiimaanihim, iimaankoodu ku hanuuniyaa. tajrii min taxtihim lanhaar, hoostooda waxaa hoos cararaya biyihii iyo webiyadii oo maaragtay jannada oo naciimka ah. دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذا كلي إليه وسبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، سلام تودنا وحويان، وإن أي سلامان السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وآخر دعواهم، يعني دعوة هذا كله بين وامحي أن الحمد لله رب العالمين. يعني في يوم القيامة وحول بالرمضان وإن مؤمنين الجنة قالان وحي أورانيان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إذا وأركتن وحاكب بلوضة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. مركا وحا إسوافقية بلوي إدماتك وإسوافقية. مركا إنت قلنا حيسنا إن شاء الله أنك دينا نولشنا نولل محوهاية تكون بسن حمدك إلهي رالي أهان شاء الله سبحانه وتعالى. arrimahan aan dhex marayna isqabqabsiga iyo iskhilaafaadka iyo waxa inaan ku mashquulno runtii ma aha. arrin weyn baana sugaya. maanta haddii xitaa adiga lagu xumeeyey waxaa la rabaa inaad dhinac kale sii fiirisid. goolku ma aha waxa inaan ku mashquulno. goolku waxa weeye an nadkhula fi lislaami kaafa, fi silmi kaafa. waxaan kaloo in xusuusinaya aayaddan quruxda miirana oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هو إلهي النبي سامنيو إلهي كعب سد سبحانه وتعالى، وقولوا قولا سديدا، وحانت هذا السبن، هذا القمن، هذا التوسن ده. أرين كانوا حنو ولا سعودة أنه ولا سعودة. مركا قف كيجي أنا جمد هاي حيتم جري، قف كيجي أنا جمد هذا الله صحيح كهذا جري. qofkii anaga naga mid ah oo dadka hadalka ku qullucin jiray, qofkii anaga naga mid ahaayo malaa yacni hadalkiisa ku maaragtay badnaayeen, ilaahay wuxuu leeyahay waxaad iska dhig, waxaad tirahdaa qawlan sadiidan, qowl u dhow sax. sadiid macnaa waxa waaye min asadaad. markaad wax rabto inaad toogato oo ay dadku markay wada toogtaan qof u dhowaada iyo qof ku dhufta iyo qof
yani ka fogaadaba ay wada noqdaan kulligood waxay dadkaasoo dhan aimkooda uu ahaa inay meeshaas toogtaan ilahay wuxuu yidhi waxaad toogataan oo raadisaan hadalka kiisa habboon ilaahay marka maxaa dhacaya markaasaa samayno ilaahay wuxuu yidhi yuslix lakum acmaalakum ilaahay wuxuu idiin islaaxinayaa wax allaala wixii camalad faraha ku haysaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyada idinka dhacdhacana ilaahay wuu dhaafayaa waman yutic illaha warasuulahu qofkii ilaahay rasuulkiisa adeecana faqad faaza fawzan cadiiman wuxuu liibaanay fawz aad iyo aad u weyn ayuu liibaanay yani waxa aad leedahay iyo natiijadu waxay noqonayso isma laha waxa lagu leeyahay waxa weeye qowl sadiida dheh waxa lagu yidhi markaa saa samayso ilaahay acmaashaada ku islaaxinaya acmaasha aad la imaanaysa taacaadka alla ah haddii khalkhal ku jiray ama qallocsanaan ku jirta ilaahay waa ku hagaajinaya markaasu haddana sidaad marka goosato laakiin weli aad dambiyo kusii dhacaysana ilaahay wuu kuusii dambi dhaafaya haddana wuxuu leeyahay waman yutic illaha warasuulahu qofkii ilaahay rasuulkiisa adeecana faqad faaza fawzan cadiiman wuxuu liibaanay fawzan cadiiman fawz aad iyo aad u weyn qur-aanka waxaad ku arkaysaa marka qaarkood in la leeyahay fawzan cadiim marka qaarkood waxaa arkaysaa in lagu leeyahay alfawz almubiin fawz cad marka qaarkood waxaa arkaysaa in lagu leeyahay alfawz alkabiir farqiga u dhexeeya muxuu yahay marka fawzan cadiiman iyo fawzan mubiinan iyo fawzan kabiir أولاً فوزاً عظيماً مركو الولاية وحوية وحنكو بلابنا الفوز المبين هرتي الفوز كموقضة وحويان مركو حاكم إلى آيادة إلهي وكله يقول إني أخاف إن عصيت ربي وحنكبقى هديان إلهي كعاسي وحنكبقى عذاب يوم عظيم ماني وين عذابتيز من يصرف عنه ماني كاسقفك إلهي عذابتك كفقية يومئذ فقد رحمه ilaahay waa u naxariistay qofkii marka naarta saa looga sarfiyana dhalika alfawz almubiin waa fawz muuqda wey marka alfawz almubiin waa naarta oo laga fogeey alfawz alkabiir fi suuratu samaa'i alburuuj ilaahay wuxuu leeyahay ina alladhiina aamanuu وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير waxaa taasi ay tilmaamaysaa fawzul kabiirka in uu qofkii ilaahay ku guulaysiiyey jannada tii hore maxay ahayd ka fogaanshaha naarta tani waxa weeye ku guulaysashada jannada marka waxaa jira fawzan cadiiman oo ahayd aayaddii haddaytan akhrinayna oo ahayd qulu qawlan sadiidan ku dhammaanaysay taasina waxay tilmaamaysaa ilaahay wuxuu leeyahay wacada allahu almu'miniina walmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر markii ay jannadaas helaan baa ilaahay wuxuu sii leeyahay waxaad ku sii guulaysateen ilaahay raalli ahaanshihiisa dhalika huwa alfawz alcadiim marka qur-aanka yani wuxuu noo kala tilmaamayaa darajaadka guulaysashada ayuu noo kala tilmaamaya marka si aan annaga waxaas mujawharaadkaas iyo jamkaas aan ugala soo baxno waxaan u baahannahay horta marka ugu horreysa inaan ilaahay barno inuu qur-aanka na fahamsiiyo inuu ilaahay qur-aankan quluubteena ku sharaxo inuu ilaahay qur-aankan asraartiisa noo kashifo markii aan yani saa yeelno ayaa ma dhammaanayaan waxa kan yani durarka iyo khayraadka qur-aanka ku jira wax dhammaanaya ma aha lianna waxa kan waa mucjizo weeye ma dhammaanayaan walaa annagay nagu xiran tahay yani in aan ka faa'iidaysano oo aan arrimahaas sii dhexgalno sababtoo ah waxa weeye kalaamullahi waa ilaahay hadalkiisii ilahaasoo dhuljalaali walikraama ilahaasoo alqawiy almatiin ilahaasoo arraxmaan arraxiim ilaahay lahaa asmaa'u lxusnaa oo dhan allihii lahaa weeye marka haddaan fahmi weyno annagaa quluubteenni daboolan tahay marka aan ku dadaalno in aan maxay quluubtaas insha allah ay noqoto quluub u soo jeeda hidaayada ilaahay inay qaadato subxaanahu watacaala aan barino inaan ku ducaysano allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatka waad garanaysaan ducadatan waxaa rasuulku uu baray saxaabigii jaliilkahay oo ahaa mucaad bin jabal intuu rasuulku usoo yaaray buu wuxuu yidhi yaa mucaad innii uxibuka waan ku jeclahay
salaad walba dabadeed ha ka tegin inaad tiraahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadati. ilaah waxaad igu kaalmaysaa xusuusashadaada, waxaad igu kaalmaysaa inaan noqdo qof shukri miirana, waxaad igu kaalmaysaa inaan noqdo qof cibaado wanaagsan la yimi. sababtaa walaalayaal waxaa horeeya qofka inuu horta xaqa fahmo. qofka markuu xaqa fahmo uu yidhahdo alleele jidkaan waa jidkii saxda, jidkaana waa jidkii xumaa, waxaa loo baahan yahay wixii intaa ka dambeeya inaad marka acmaal saalixaada ku dhaqaaqdo, inaad la timaado. caqabada kaa hor imaanaysaa marka waxay tahay in mararka qaarkood naftaadii aysan yeelaynin. that's why ducadaana kale loogu baahan yahay. waxaa arkaysa adoo og inaad maanta maaragtay kitaab qaadatid oo akhrisatid inay sax tahay, laakiin nafsadaadii caajisa. waxaa arkaysaa jirkaagii baan yani ku yeelaynin mararka qaarkood inaa xaggii daacada u qunto. ilaahay marka rasuulkeenna wuxuuna baray inaan marka ducooyinkan oo kale aan ku ducaysano oo aan niraano ilaahu nagu hanuuni xasuusashadaada, nagu hanuuni shukrigaaga inaan la nimaado, nagu hanuuni cibaado qurux badan oo adiga aan kugu cibaadaysanan inaan la nimaado. lanno qofku markuu saas isugu sii dayo oo ilaahay noqdo ilaahay oo miduu raalli ka yahay, markuu noqdo islaamku inuu qaato as a diin, markuu aamino nabiyullaahi maxamed inuu nebigiisi yahay, wuxuu yidhi rasuul sal salam qofkaasoo kale iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa waa uu dhadhamiyey. daaqa طacmu liimaani wuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisa qofkii man radiya billaahi rabba, qofkii ilaahay rabbi ka dhigta oo islaamka diin ka dhigta oo nabiyullaahi maxamedna ka dhigta rasuul sala allahu alayh wasalam. xadiid rawaahu muslim. marka yani ma laga daalay walaalayaal kitaabka kan, naftan mar walba maaragtay ku khasabno inay maaragtay waxa kan ay aaminto. iimaanku inuu qalbigaaga ka buuxsamo waqtiguu qaataa. suurat alxujuraat waxay leedahay acraabtii markay tiri waqaalat ilacraabu aamanaa, markaasa ilaahay wuxuu leeyahay qul lam tu'minuu. carabtii baa waxay tiri waan rumaynay, markaasa waxaa la leeyahay maydan rumaynine laakiin quluu aslamnaa, waxaad tidhaahdaan waanu islaamnay. walamaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum, yani waqti bay qaadanaysaa inta uu islaamku ama iimaanku quluubtiina ka buuxsamayso. marka mararka qaarkood waxaa arkaysaa qofkii oo tukanaya oo qaladaad yaryar iska leh. aayaddiina waxay leedahay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar, salaadu waxay rabtaa xumaha iyo waxaasoo dhan bay rabtaa. qofkii laakiin wuu tukanaya, waxaad arkaysaa sigaar iyo waxbuu iska cabaya maalan oo kale. marka yaa been sheegaya? ma aayadda been sheegaysa mise naftaada been sheegaysa? waxaa been sheegaya naftaada wey. ku dadaal adiga ku sii soco, markaad ilaahay maaragtay ku sii adkaysato waddadiisa, waxa kan hadhowt waxaa noqonaysaa qof muxuu ahaayeeto ilaahay uu xumaatadaas uu ka reebo siday aayaddu noo tilmaamayso oo kale. waxaan kaloo rabay inaan kelmad iska niraano insha allah kusoo gabagabaynayaa. meeshii beri loo gaaro insha allah yowm alaxad waxaa bilaabanaya 10 dilxaj. 10 dilxaj fadaa'ilkeedana walaalayaal maasha allah dad idinka waxaa tihiin xalaqaadka ku xiran waad wada garanaysaan, laakiin waxaa la yidhi wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin. xusuusi mu'miniintu waxa badanaa dikrigaasoo kale wuu anfacaye. anagii marka sababtaan ugu baahanaa in la isxusuusiya waxa ay tahay waa anagio mar walba iska mashquulsan ama ay caruurtii reerihii iyo shaqooyinkii ayna mashquulinayaan. laakiin waad la socotaanin maalmaha kan ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu watacaala walfajri walayaalin cashr. waa 10kaas maalmooda ilaahay subxaanahu watacaala oo ku dhaartay. waxaana loo baahan yahay waa 10ka maalmooda oo maaragtay dilxaja ugu horeeya, waxayna ka mid tahay bishii dilxaj 10keeda maalmood ugu sii horeeya. ilaahay subxaanahu watacaalana waxa uu noo yani nagu maaragtay boorinayaa inaan la nimaadno dikri allah subxaanahu watacaala, inaan la nimaadno siyaam, in aan la nimaadno quraan akhris, inaan la nimaadno qaraabo xiriirin, inaan la nimaadno qurbaan iyo maalinkaas qofkii awoodo inuu neef gowraco. maalinka yooma carafa soonkeedana dee waxaaba layidhi waad la socotaanin ilaahay qofka wuxuu ugu dambi dhaafaa sanadka hore iyo sanadka soo socdaba 2 sano. yooma caashura sanadka hore weeye, yooma carafa 2 sano ayuu ilaahay dembigaaga ku dhaafaya.
waxaan just rabaa inaan xusuusi xadiid kale oo qurux miran oo ku jira maaragtay saxiix muslim albukhaari ku jira ayaa ilaahay rasuulku wuxuu leeyahay maa min rajulin ma jiranin ama qof yani yasuumu yowman oo sooma maalin ilaahay dartiis u sooma fii sabiili illah ilaa baacada allahu bidalika alyowma can wajhihi can innaar ilaa wuxuu ilaahay ka fogeeyaa oo maalinkaas uga fogeeya wejigiis wuxuu ilaahay ka fogeeyaa naarta 70 khariifan in la eg 70 sano tanina waxa weeye waa soom oo nafli ah weeye soon iska tatawuca weeye soon aan maalin gooni ah ku maaragtay xirnayn weeye adoo maalin keliya iska soomay oo ilaahay dartii u soomay oo aan occasion iyo waxba aadan maaragtay la fiirsanin oo aad just ilaahay dartii isaga soontay baa ilaahay wuxuu wejigaaga kaga fogeynayaa naarta 70 sano ka warran marka haddii aad marka maalinkaasoo kale aad soomto 10 min maaragtay ayaam min 10 dilxaj dhexdeed ajarkeeda aad iyo aad ayuu weyn ذكري of Allah subxaanahu watacaala aad ayuu u weyn yahay muxuu ahaa silatu raximka aad ayuu u weyn yahay maalinka yani rasuul horta kama sugnaanin inuu 10 maalmood ba wada soomay laakiin wixii aad soomi kartid soom marka qaarkood rasuulku isagoo og waxaan inay maalmo khayr yihiin buusan samayn jirin sababtoo hadduu sameeyo dadkii muslimiinta ayay wixii waajib ku noqonaysaa marka isaga noo dhimrinaya rasuulka sal ly salam laakiin haddaad isniin iyo khamiis soomi jirtay wad haddii aad muxuu ahaayeto inta aad karto soon muxuu ahaayeto dadka aan xajka jirin yowma carafa inay soomaan aad iyo aad bay muhiim u tahay wahaakada walaalayaal waxaa arkaysaan ilaahay subxaanahu watacaala laga soo bilaabay ramadaankii maalmihii bil wuxuu noo sameeyey la soomo bishii waxa uu haddana kusii daray maalin maaragtay leylatulqadra wuxuu haddana ilaahay noo sameeyey 6dii maalmood ee shawaali la soomi jiray qofkii kaloo rabay inuu soomo isniin iyo khamiis buu soomi karaa qofkii kale inuu sii wado wuxuu soomi karaa 3 maalmood ee bisha dhexdeeda haddana waxaa yimid 10 dilxaj يعني فرص كان إلهي فرصة أفتر فرصة بالنسيرة بل إنا وحونا أحسن سمينه سي إلهي سبحانه وتعالى هذا وتؤمنه كرامي مركا إن شاء الله أنت أنا نضائنا معركتي كسو قبقبي أعماشة ونأكسن وقفك سمينه يعني لما قيدين وحالين وافعلوا الخير وحلا لوحي خير أسمين كرتو السمين نمحو هايتو haddee waxaana ay ka mid tahay taas ilaahay karamkiisa ay ka mid tahay waxaan ilaahay ka baryaa subxaana watacaala inuu na waafajiyo cibaadadiisa waxaan ilaahay ka baryaa subxaana watacaala inuu naga aqbalo cibaadada salaada soonka quraan akhriska waxaan ilaahay ka baryaa subxaana watacaala inuu na oofsado anagoo wada muslimiina waxaan ilaahay ka baryaa subxaana watacaala inteena muslimiinta ah in aan kulligan jannada ku wada kulanno subxaana watacaala waxaan ilaahay ka baryaa waalidiinteennii na dhalay inuu dembigooda dhaafo waxaan ilaahay ka baryaa duriyaadkeenna oo dhan inuu islaaxiyo oo wadada xaqa tuso oo annagana insha allah ilaahay uusan na fidnaynin subxaanahu watacaala waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala in uu iimaanka noo ziyaadiyo waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala in uu xanuunka iyo dhibta jirta oo dhan ilaahay naga qaado subxaanahu watacaala waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala wadamadeena inuu noo islaaxiyo ونوعد أنه سالمين غانمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا أداني إذن كل وقت إمام مغضى عليها مرتبا لهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته